السلام عليكم أصحابتي qaaliga waa idin salaam meel kasta adduunka joogtaan waa walaashin iyo muuqaal kale cusub waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada haddii ay tahay markii ugu horreysay aad daawanayso please subscribe inoo saar gambalaalkana furo muuqaalka aan soo dhigo si oo kuu soo gaaro insha allah noona sii share gareeya like-tan hanaga iloobina waana mahadsantihiin dhammaantood asxaabta cusub soo dhawaada sida arkaysa halkan waxaan kusoo diyaarsaday waa hilib ari oo aan kasoo bixiyay barafka qaybka fridge-ka ah soo banaanka ayaan soo dhigay waxaan ku shubtay biyo kadibna waxaan halkan kusoo diyaarsaday oo aan kusoo daray waa hilib lo oo jiir ayaan rabaa inaan ku daro marka hilibkii ayaan hadda bacda ka fiiqay sida aan usoo gaday waa weli maanan jarjarin kadib waxaan rabaa haaf yar inaan kala baxo oo waxaan rabaa qayb kamid ah hilibka jiirta inaan kala baxo oo aan ku daro hilibka ariga ah si uu noqdo hilib ama maraq inaba caadi ah oo kusoo baxay insha allah sida arkaysan hilibkii jiirta ah soo jarjaray halkan waxaan kusoo diyaarsaday hilibkii ariga ahay kadibna waxaan kusoo daray 2 koob oo biyo ah dabka ayaan u dheereeyay oo halkaas ayaan saaray ugu yaraan 30 daqiiqo kadib waxaa waay hilibka biseel badan uma soo baahnayn waxaa lafihii iyo hilibka kaaliska ariga ay kusoo bixin waa kala dhaceen faanteen marka hadda waxaan sameynayaa insha allah maraq yar rabaa inaan dalaco kadib waxaan sameynaa digsi kale ayaan soo qaatay maraqi iyo hilibka ayaan kala miirayaa sida arkaysan hilibkii ayaan kala baxay maraqan gooni u saaray hilibkina gooni ayaan u saaray waxaan rabaa in aan shiilo oo aan kala baxo marka halkan waxaan kusoo diyaarsaday khudaar oo aan rabaa suugada maraqa maraqad aan inaba caadi ahayn oo muufo lagu cuno ayaan kasoo tuuraa insha allah waa bocor ama zucchini baradho iyo hal xabo tomato 2 xabo karooto iyo xabad basal iyo toon insha allah si arkaysan digsiga ayaan dabka soo saartay wax yar oo saliid ayaan kusoo shubay maadaama aan rabo hilibka maraqa aan kala baxay in aan ku kariyo maraqa hadii kale wuxuu noqonayaa maraq dufan badan marka waxaan sameynaa wax yar oo saliid been ayaan ku shubtay digsiga oo aan rabo basasha inaan ku shiilo basasha iyo yaanyada ayaa halkan kusoo shubay iyo toon ayaa halkan kusoo shubtay marka 2 xabo toon ayaan soo hoolay kadibna hilibka ayaan u dhiibay beerka ayaan u geliyay faanteen sida arkaysan waxaa inta ayaan isku shiila kaaliska armka isku soo noqday xawaash allah xawaashka haysta ayaa ku darsan kartaa hadda sida arkaysan waxaan ku darsaday xawaash kaari kadibna waxaan ku darayaa xawaash duudub ayaan ku darsaday maraqa muufada haddii aad sidan u samaysto waxaa hubaal ah inaad ka heli doontaan insha allah ila tijaabiya gabdho waxaan idin leeyahay waa maraqa inaba caadi ahayn wallahi ila soo baroobeeya waxaa waaye maraq khudaartiisa wata nafaqadiisa aad u dhameystiran yahay muufo inaba arag ahayn insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan sida arkaysan hadda waxaan kusoo daray baradho iyo karootadii iyo bocorkii aan isku soo jarjaray oo si isleeg ayaan usoo soo wada samay kadibna waxaan dusha kaaga daray waa maraqii kadibna 1 koob oo biyo ah 1 koob iyo haaf biyo ayaan kusii darayaa insha allah maadaama muufo ay tahay qofkii raban uu ku jarjaranayo qofkii raban maraq uu ku dardaaranayo maraqa iyo khudaarta iyo hilibka oo isla wada eegayeen maasha allah tabarakallah inaba caadi maaha intaas markay isku soo dhidhiinta ayaan isla arki doonaa haddana waxaan ku darayaa xitaa waa maraq digaag hal xabo maraq digaag haddii aad jecleen maraq digaagna waa ka dhaafi kartaa muhiimada maaha inaad maraq digaag iyo khudaarta waxa ilaalo waxaa jecesha ay ku darsanaysa oo markaas guriga ku yaalo muhiimada maaha inta aan ku darsado inaad ku darsato ugu dambeyn maraq waan soo daboolnay ilaa 30 daqiiqo ayaan sugaynaa baradhada intay kasoo bislaanayso kadibna waa arkaysan baradhadii adduunyadii waa soo burburtay waa isku soo dhidhiinta kaaliska arag lagama sheekay karo dhadhankiisa marka waxaan halkan kusoo jarjaray basal aan warwareeg kusoo jaray iyo barbarooniga cas kadibna kabsar caleen ayaan si waaweyn usoo jarjaray maana soo tumin kabsar caleenta midida ayaan kusoo jarjaray inaba caadi maaha maraq lagama sheekeyn karo intaas sida marka isku soo dhexgeliyo kadibna daboolka dhab u siinaya waxaan duweynaa oo isla arki doonaa waa muufadii insha allah ayaan qasanayna hadartaan ugu dambeyn halkan waxaan kusoo darsaday baaquli waxaan kusoo shubtay 3 bakeeri oo bur ah 1 bakeeri oo galiid shiidan ah halkan waxaan ku darsanayaa 3 qaando oo cuntada lagu cuno oo sokor ah sokorta iska yaree kartaa qasamaha maadaama maraq lagu cunayo waxaan ku darayaa xabad ukun ah inaba caadi maaha ma fahantaa haddii yani 3 bakeeri ka badan bur aad sameysanayso oo familka badan maasha allah tabarakallah yahay ukunta 2 xabo ayaa ka dhigi kartaan insha allah haddii aad xasaasiyo ku tahane ukunta waa iska dhaafi kartaa muhiimada maaha ukun inaad ku samaysto ukunta bedelkeeda waxaa gashan kartaa caanaha garoorka ama turkishka yoogad oo kale ayaa gashan kartaan kadibna sida arkaysa halkaas waxaan kusoo daray waxay tahay heel aan soo tumo oo yani
aad usoo burburiye ayaan ku darsaday, wax yar caraf ayaan ka rabay. Kadibna halkan waxaan kusoo qastay waxaa waa qamiirka oo jilicsan ayuu ahaa, marka gooni ayaan usoo qasay. Markii aan soo dhexgeliyay burkii ayaan dusha kaga daray. Hoos la arki doonaa inaba caadi maaha. Sidaas ayaan kusoo garaacayaa oo yacni aan isku soo dhexgelinaya intii aan isku soo dardaray. Muufa laga sheekeyn karo. Dee shaahna waa u qaadan kartaa, waa ku cabi kartaan, maraq waa lagu cuni karaa, wax ay diidayso ma lama fahanteen. Ila soo tijaabiyo waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan, ila barooweeya insha Allah. Kadibna waxaa waaye meeshan ayaan gees ayaan usoo baxay maadaama xagga ay tahay bir. Alwaaxa ayaan soo saartay, si fiican ayaan rabaa inaan u garaaco cajiinka oo si fiican isku dhexgeliyo. Marka xogaa waxaa u maleysaa inay yara adag tahay, waxaan ku daray doonaa insha Allah biyo yar ayaan ku daraa, laakiin marka hore si fiican ayaan u garaacaa. Si fiican ayaan isku dhexgelinaa, dee lagama sheekeyn karo ya. Cajiinkii wadankeen sida u qasin jirnay camal habeenkii waxaa u maleysaa xilligii oo 3 saac habeen ama 2 saac iyo wax la jiro markii la gaaro habeenkii soo dhac ciidaha deriska oo dhan waxaa u maleysaa inay isku faani jireen sidaas camal. Cajiinka nasli ayaan kasoo siibay, sidaas markaan kasoo dhigo maasha Allah tabaarakallah si jilcan ayuu ku soo baxaa. Halka ayaan iska dhiganayaa insha Allah, intuu nooga soo faxay ayaan sugi doonaa. Waan daboolkiisa dhab ilaa 30 daqiiqo ayaan sugaya insha Allah intuu ka soo faxayo. Dee waa kana ugu dambeyn wuu noo soo khamiiray, maraqeena halkaas ayuu noo saaray, wuu noo karsan yahay. ugu dambeyn cajiinkeena sidaas ayuu ku soo faxay oo noogu soo khamiiray sida arkaysaan. maasha Allah tabaarakallah si inaba caadi ahayn ayuu noqday. Kadib waxaan sameynayaa birtaawada ayaan dabka soo saartay. Markay inoo kululaatay waxaan ku firdhinayaa biyo sidii caadada ahaydba markastoo muufa la duwayo. Haddii kale waxaa muufada marka aad ku shubto waa ka ordaysaa haddii aadan birta marka ugu horeysa aadan biyo ku firdhinin. Waxaan soo qaatay in yar oo cajiin ah. Wuxuu ku xirantahay muufadaada haddii aad rabto muufa isla eg qiyaasta gacantaada ah. In yar oo isla eg aad samaysan kartaa. Muufadan markasta waxay ku qurux badan tahay muufa yar oo kooban oo isla eg inaa markasta ka samaysto. Xabad weyn iyo xabad yar ma wanaagsano insha Allah in isla eg kaysta ay muufada ku qurux badan tahay. Xabada ugu horeysa ayaan ku soo dhameeyay. Waxaan sameynaa yacni gacanta ayaan ku dhibco ugu sameynaa. Kadibna daboolkeeda ayaan dab ku sistay. Dabka maaha yacni dab aad u dheer, waa dab nuxuus ah. waxaan halkan kusoo diyaarsaday waa saliid buraash yar ayaan soo dhex gashtay si oo saliid iiga badanin. Sidaas ayaan korka ka marmarinayaa oo ku masaaj gareynayaa. Kadib maasha Allah tabaarakallah sida hoos saas ayay usoo gududatay. Markasta haddii dabkaaga yar yahay yacni waxba kaama halaabayaan. Wixii ceeriin cuntadii ceeriin kaagama soo baxayso insha Allah. Markasta waxaan iskula talinayaa dabka in aad gaabsataan. maasha Allah sidaas quruxda badan nooga soo baxday labada dhinacba markii aan dubay. Lagama sheekeyn karo cajiinka dhan waxaa waa jaalo waayo galeyda ayaa keenayso. Galeyda cad iyo galeyda jaalaha isku darsanaya markii horeba isticmaalay. Jaalaha ayaa u badneed inaba caadi maaha galeyda jaalaha ah. Inta badan taa ayaan isticmaalaa. Marka sida arkaysaan hadda xabadii labada ayaan kusoo shubay walaalahay qaaliga aan jecelahay. saas quruxda badan ayay muufadan noogu soo baxday. Lagama sheekeyn karo inaba caadi maaha. Ila soo barooweya insha Allah. Sidaas ayaan kusoo wadaynaa isla socod wanaagsan. Xabadii labaad saas ayaa kusoo baxday iyadana. Idama wada tusi karo muufada aan wada duwayo. 1 iyo 2 iyo 3 ayaan ka wada tusayaa insha Allah. dhankii kalena hadda midii kalena saas ayaa kusoo baxday maasha Allah tabaarakallah. Marka caagadaha yar aan haysta ayaan ku riixayaa si ay dhanka kaleetana si lamid u guduudato ayadana oo yacni dhanka uga kaato oo isla wada ekaato. Kadibna sidaas ayaa kusoo baxday. Daboolka hadda ayaan ka qaaday. Saas quruxda badan maasha Allah tabaarakallah inaba caadi maaha. adig ayaa ka sheekeyn doono. Adig ayaa idin macaan ku ah sida kusoo baxda muufadii. marka waxaan idin leeyahay walaalihii quruxda badan aan isla wada socono idila socda insha Allah. waana mahadsantihiin daawashadeena quruxda badan dhiirigelintiina ya.
ugu dambeyn muufadeyna sidaas ayaan kusoo dhameeyay xabadii ugu dambeysay waaye maasha allah tabaarakallah sidaas isla eg quruxda badan maasha allah lagama sheekeyn karo macaanta ayaa kasii daran waxaan idin leeyahay ila soo tijaabiya walaalahayga marqiina sidan ayuu diyaar noogu yahay basashii barbaroonigii kabsar caleenta aad ayay u dhexgashay maraqa markii aad sii kasto carafta udgoonka lagama sheekeyn karo waxaan idin leeyahay maraq iyo muufo iyo qabowga yaa xilliyada qabowga ha laga faa'iideysto insha allah waxyaabaha ugu fiican ee la isticmaalo ayay ka mid yihiin inaba caadi maaha sidaas quruxda badan ayaan kusoo diyaarsan walaalahayga waxaan idin leeyahay caafimaad kheyr iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idin rajeynaa